qaybtan waxaan ku baranaynaa hadduu la yiraahdo chapterka 6 waxaan ku baranaynaa wax la yiraahdo employee engagement and motivation. Marka aan ka hadlayno OD ama organizational development, aad iyo aad bay muhiim u tahay in shaqaalaha isdhexgalkooda iyo dhiirigelintooda aan wax ka ogaano ama wax ka barano, inaan fahanno maxaa shaqaalaha farxad gelin kara isla markaasna ka dhigi kara kuwo wax soo saar leh ama productive ah. Marka waxaan arki doonaa theories kala duwan oo ay yiraahdeen dad motivationist ah oo yani ka hadlay sida shaqaalaha loo dhiirigelin karo. Taasna waan arki doonaa insha Allah. Marka maxay tahay engagement, employee engagement waa maxay? Markaan ka hadlayno employee engagement, waa marka uu shaqaaluhu dareemo ama employees feel passionate about their work, in ay ku raaxaysanayaan, jecel yihiin shaqadooda. Haddii shaqaaluhu jecel yihiin shaqadooda, kuna faraxsan yihiin, that means employee engagement micnaheedu waa intaas weeye, in shaqaalihii engagement lagu sameeyey ama la dhex galay, yani kuna faraxsan yihiin. maxaa ka dhigaya qofka inuu shaqadiisu ku farxo? That means waxa uu doonayay ayuu helay. Tusaale ahaan, kambanigan shirkadda Samtel oo kaleetaad u shaqaysaa, mushahar fiican baa lagu siiyaa. Guri haddaa u baahato, bangiga dahabshiil baad ka qaadanaysaa lacag oo aad qayb yar mushaharkaaga lagaga jarayaa. Gaari haddaad u baahato, bangiga dahabshiil baad ka qaadan kartaa, mushahar fiican baad qaadanaysaa. That means you are satisfied. That means shirkadda Samtel organization maadaama uu yahay organizationkaas wuxuu sameeyo waa maxay? Employee engagement, in uu la falgalo shaqaalihii. Marka dadka markaa u shaqaynaya organizationka maxay u dadaali doonaan? Waxay u dadaali doonaan goolasha organizationka. Waxa ay wax walba u huri doonaan, yani in organizationka si fiican ay ugu shaqeeyaan. Sababtoo ah qofku wuxuu qaadanayaa mushahar fiican, wax walba u baahdana waa laga caawinayaa. Haddii ay noqoto training, hadduu u baahdana training baa la siinayaa. Haddii uu qalmo in kor loo dalacsiina, kor baa loo dalacsiinayaa. Haddii uu keeno shahaado extra ama qualificationkiisa uu kor ku qaado, tusaale hadduu bachelor master qaatay, hadduu master ahaa PhD qaatay, that means waxay keenaysaa in shaqaalihii ay faraxsanaan dareemaan, dhiirigelin dareemaan, organizationkuna wuu kobcayaa, shaqaalihiina wuu kobcayaa. Marka that is waxa ugu muhiimsan markaan ka hadlayno organizational development. Marka maxay micno u leedahay in lala falgalo ama engagement lala sameeyo shaqaalaha? Waxay kordhinaysaa wax soo saarka, productivity-ga ayay kordhinaysaa. Waxayna siyaadinaysaa in kambanigu uu jiro muddo dheer ama waqti dheer. Waayo shaqaalahaagu markuu kaa kala tegayo, dadkii skillska lahaa oo laga yaaba qaybtood inaad adigu tababartay, laga yaaba qaybtood inay adiga meel hoos iyagu jooga aad soo gacan qabatay, haddii maalin walba ay kaa tegayaan, waxaa laga yaabaa in organizationka uu burburo. Laakiin haddii aad salary fiican siisid, training fiican siisid, yani wax walba ay u baahdaan organizationka uga baahdaan aad u fududayso, waxay kula joogayaan waqti dheer. That means organizationkaaguna waqti dheer ayuu jiri doonaa. Marka theories of motivation, waxaan fiirinaynaa marka laba theory oo yani sheegaya qaabka aad ula falgeli karto shaqaalaha. Kan koowaad wax maxay waa Maslow's hierarchy of needs. Wuxuu yiraahday dadku marka waxay doonayaan waxyaabo kala duwan. Qof walba needs gooniyu leeyahay. Qof raba inuu aroosto, qof already intuu aroosto wuxuu rabaa inuu gaari helo, qof intaasoo dhan baa haysta laakiin guri haysan. Marka qof walba needs gooniyu leeyahay. Marka haddii lagu dhiirigeliyo in la fulfill garaynayo, loo dhammaystiri doono baahidooda,
waxay keenaysaa in shaqaalaha uu ahaado kuwa dhiiran ama motivationkoodu uu kor u qaadaya marka qof walba haddii needskiisa la fulfill gareeyo la dhammaystiro waxay keenaysaa organizationku in uu la falgalay shaqaalihii ninkan la yiraahdo Hesberg's two-factor theory wuxuu leeyahay motivators like recognition vs hygiene factor like salary in aad qofkan aqoonsatid inuu yahay qof adiga kuu shaqaynaya isla markaasna mushaharkiisana aad ilaaliso waxa weeye waxay keenaysaa dhiirigelin waxay keenaysaa in shaqada la qabanayo ay ahaato shaqo nadiif ah oo aan mugdi ku jirin qofkuna mushaharkiisa uu ku xisaabtamayo shaqadiisana si fiican u qabanayo laakiin haddii qofka mushaharkii laga jarayo mar mushaharkiisu iska hooseeyo 5 sano ka hor mushaharku ku shaqaynayo ilaa hadda uu ku shaqaynayo that means ma keenayso inuu qofka dhiiranaan uu dareemo haddii uu organizationka ka wareegi karana uu ka wareegayo marka that means waxay saameyn ku yeelanaysaa organizationka both are important for motivation marka labadaas factor buu soo jeediyay in shaqaalaha la aqoonsado oo recognition la sameeyo salary-gana waxa weeye mataqaanaa aan muran midna laga gelin marka aad bay muhiim u tahay labadaasba waa laba wax oo dhiirigelinaya qofka employee-ga ah oo organization ku shaqaynaya inuu ku dhiiranaado shaqada uu qabanayo waana laba hab oo aad kula falgeli karto shaqaalaha marka muhiimadda ay leedahay inaad shaqaalahaaga aad aqoonsato jiritaankooda maxay keenaysaa waxay keenaysaa in aad acknowledge garaysid shaqada adag ee qabanayaan shaqaalaha ku mahad celisid u dhiirigelisid iyo waxyaabaha ay ka guulgaarayaan shaqadii waxbay qabteen waa inaad u mahad celisid dhiirigelisid acknowledge garaysid oo tiraadid shaqada aad qabateen waa la soconnaa thank you aad tiraadid kaasi marka waxay keenaysaa recognition inaad wixii aqoonsato inuu qofkaan shaqo kuu qabtay maxay marka faa'iido leedahay waxay faa'iido leedahay waxay kor u qaadaysaa moralka shaqaalaha waxay keenaysaa job satisfactionka iyo daacadnimada in qofkan uu shaqadiisa uu ku faraxsanaado ayay kor u qaadaysaa isla markaasna uu shaqadiisa daacad u ahaado marka aad bay muhiim u tahay recognition inaad yaqiinsato qofkan inuu yahay qof adiga kuu shaqaynayo markuu shaqo ku qabtana aad tiraahdo just thank you isla markaasna aad mataqaanaa waxay keenaysaa marka in moral ahaan qofku job satisfactionkiisu uu kor u qaadmo marka maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay waa maxay providing opportunities for growth in aad u keento shaqaalaha platform ama nidaam ay maaragtay kor loogu qaadayo aqoontooda marka aqoontooda marka waxaan dhigi karnaa training and development trainingku marka waxa la yiraahdaa waa short term tusaale ahaan xirfad yar oo u baahan yahay qofku inuu maalintaas shaqada ku qabsado ama bisha soo socota xirfad yar oo u baahan yahay ama qalab cusub baa la keenayaa qalabka loo sii tababaro short training buu isaga baahan yahay developmentkuna waa maxay waa long term tusaale ahaan shirkad waxa laga yaabaa in 5 sano soo socota qalabkan ay ka guurayso qalab kale aadi doonto ama nidaamka tiknoolajiyadu isbedelayso nidaam kale loo guuri doono in la sii baro shaqaalaha tusaale ahaan AI waa 5 sano kadib loo guurayo ama artificial intelligence in shaqaalaha lagu dhiirigeliyo inay AI wax ka sii bartaan that means developmentigii qayb bay ka noqonaysaa in laga sii fikiro was next 5 years 10 years maxaa u baahan organization kacga loo socda waxayna caawinaysaa in shaqaaluhu bartaan xirfad cusub isla markaasna ay koraan oo knowledge ahaan qualificationka dhiirigelin ay u noqoto qualificationkooda xoojiyaan sidoo kaleeto waxay keenaysaa in qofku xirfadiisa ama careerkiisa uu kor u qaadmo position laga bedelo position kale la geeyo mid kale boss laga soo qaado boss inta badan waxyaabaha organizationada waddankeena aan ku arag oo xakan ku arkay waddankan Malaysia oo kaleeto tusaale ahaan macallin baa waxa loo dhiibayaa deanka faculty-ga ama dean of faculty ama head of department
ولو سي شيء waxa la leeyahay bisha koowaad kowdeeda 2023 ilaa 2024 muddo sanadaad haynaysaa qofku marka 1 year baad haysataa baa loo sii sheegaba shaqadii within 1 year wuxuu ku dadaalayaa shaqada intuu u fiicneed inuu qabto laakiin qofka dhiinka ka ah ama head department Soomaaliya ka ah maalinta la magacaabo warqadda lagu qoro looma sheegayo intuu sano oo xilka haynayo inta maalmood xilka haynayo qofku marka muxuu ka dhiganayaa meel uu isagu leeyahay wuxuu doonuu samaynayaa habacsanaan buu samaynayaa shaqadii toos u qaban mayo waayo wuxuu ogyahay waxaanba in xilligan laga qaadayo ma oga that means laakiin limited time qofka markaad siiso aad tiraahdo within 1 year positionkaasaan kuu dhiibay within 2 year booskaasa lagu magacaabo uu dadaalayaa marka aad bay muhiim u tahay in shaqaalaha la isku bedbedelo positionada qofku waxa weeye head department hadduu noqdo dean loo sii wareejiyo faculty dean laga sii dhigo kor u sii kaco saas oo kale positionada la isku bedelo laakiin hal qof hadduu positionka iska haysto abid that means shaqaalaha wixii ka hooseeya meesha way isaga yaacayaan oo meelo kaleeto oo ay ku kori karaan oo mustaqbal kale ka samaysan kara qofku sii aadaya marka si organizationku u kobco developmentii loo sameeyo in career-kana sidaas oo kaleeto growth la sameeyo oo positionada la isku bedbedelo aad bay muhiim u tahay marka in la abuuro positive work environment iyaduna aad bay muhiim u tahay in shaqada la qabanayo ay ahaato mid isku dheelatiran tusaale ahaan work life balance shaqadii iyo nolosha waa in la isku balance gareeyaa sometimes flexible schedules ay jiraan yani schedulada qaybtooda maalmaha qaybtooda oo kaleeto ama maalmaha fasaxyada oo kaleeto haddii ay ku aadismaan tusaale ahaan kowda bisha oo kaleeto May waa maalinta shaqaalaha adduunka oo organizationada inta badan waa fasax haddii maalintaas ku aadismato maalin jimco ah oo already ay ahayd maalin maaragtay fasax waa in laga sii dhigaa maalinta sabtida ah oo qofkii dib loogu sii dhigaa maalintiisa si laba maalmood uu jaanis ugu helo marka flexible in la sameeyo sometimes aad bay muhiim u tahay haddii la yiraahdo maalintaas aad fasax lahayd maalintii aad fasax ahayd bayna ku beegmatay that means meesha waxaa ka baxaysa maalintuu qofkaas ku xisaabtamayay wayna dhacdaa hadda inta badan Malaysia oo kale tan ku arkay marka hadduu qofku waxyaabo baahiya gaara uu sheegto fasax u baahan yahay in la siiyo jaanis oo aan challenge lagu noqon codsigiisa oo kaleeto in maaragtay la dhiirigeliyo la dhageysto shaqaalaha iyadoo ruuxadeeda waxay keenaysaa positive work environment marka motivationka markaan ka hadlayno employee engagement motivationka waxaan u kala qaadi karnaa laba qaybood qaybta koowaad oo ah intrinsic oo in ah iyo qaybta labaad oo ah extrinsic oo ah ex intrinsic marka waa maxay qofku shaqada uu qabtay personal rewarding haddii shaqada uu qabto lagu abaalmariyo tusaale ahaan shaqadii uu caadiga qabanayay buu ku raaxaysanayaa si fiican buu u qabanayaa hadduu shaqadiisa uu wato in la abaalmariyo la yiraahdo waa laga dalacsiiyey training noocaasa lagu dirayaa well done thank you la yiraahdo okay ka marka waxa la yiraahdaa intrinsic baa la yiraahdaa waxaa noo soo haray extrinsic isagu waa maxay hadduu qofku la yimaado shaqo dheeraada in la abaalmariyo tusaale ahaan doing something for external rewards yani wax uu ku mudan karo in uu abaalmarin dheeraada ku heli karo tusaale shaqo dheeraad uu qabtay ama waqtiyada la shaqayn jiray waqtiyo ka badan buu sii shaqeeyaa waxyaabo kale uu soo kordhiyay si in maaragtay loo mahad celiyo lacag la siiyo la dhiirigeliyo promotion la sameeyo waxyaabahaas oo dhan iyadana waxay keenaysaa dhiirigelinta noocaasna waxa la yiraahdaa extrinsic motivation marka motivationka engagement of employee waxaan u kala qaadi karnaa we can take intrinsic and extrinsic waxaa noo soo haray waa maxay team building and collaboration in teamisku mar walba ahaadaan kuwa maaragtay
dhismaya wada shaqaynaya in strong team la helana waxa ay xoojinaysaa in la wada shaqeeyo cooperation la wada sameeyo and la wadana maaragtay encouraging of teamwork in shaqaalu ahaada mid dhiiran faa'iidada ay leedahay marka maxay tahay waxay horumarinaysaa communication and problem solving waxay kor u qaadaysaa moralka iyo shaqadii in lagu qanco marka shaqaalaha waxaan uga baahannahay mar walba waa maxay feedback iyo review tusaale ahaan su'aala la weydiiyo loo qaybiyo Malaysia jaamacadaha waaweyn every semester ama every year marka ay dhamaanayso ardayda su'aala la weydiinayaa inay macallimiinta ka feedback bixiyaan hadday dhibaato jiraan soo sheegaan macallimiintu ruuxadooda iyaga su'aala la weydiinayaa ay jaamacadda waxyaabaha hadday jiraan ay jecel yihiin inay soo gudbiyaan marka aad bay muhiim u tahay organizationada waaweyn in ay mar walba shaqaalahooda ay ka ururiyaan review iyo feedback taasna marka waxay kor u qaadaysaa in shaqadii la kobciyo waxyaabo badan laga guul gaaro caqabadaha jira marka la xalliyo la qiimeeyo meelaha ay maaragtay wax ka dulduleelku uu ka jiro performance-ga kor loo qaado isla markaasna la samaysto goals lagu horumarinayo lagu kobcinayo organization-ka marka si marka loola falgalo shaqaalaha maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in survey la sameeyo in surveygaas marka la sameynayo laga qiyaas qaadanayo faraxsanaanta ay shaqaaluhu ku faraxsan yihiin shaqadooda isla markaana su'aalo la weydiinayo managementiga la xiriira environmentiga iyo meesha ku shaqaynayaan waxa ay isticmaalayaan waxaas oo dhan su'aalaha lagu weydiiyo markii result uu soo baxo marka surveyga waa in improvement la sameeyo su'aaliyo la weydiiyay shaqaalihii waxay soo gudbiyeen waxba lama qaban micno ma sameynayso waa in la hirgeliya waxyaabaha challengeska markaa soo gudbiyaan intii marka organizationku awoodo inta kaleetana uu caddeeya xilligaas iyo xilliga noocaas aan rajaynayna inaan xallino isla markaasna actionku waa waxa ugu muhiimsan oo qofka hodhow next year marka haddana survey su'aala la weydiiyo haddana uu ku kalsoonaan karo inuu si fiican uga jawaabo si haddana wax kale oo kasii duwan loo sii qabto marka intaan waxaan kusoo koobayaa in maaragtay shaqaalaha lala falgalo waxay keenaysaa in shaqaalihii uu faraxsanaado wax soo saarkiina uu kordho waxay keenaysaa dhiirigelin qofku inuu shaqadii marka uu shaqadiisa caadiga ah u qabsadana la dhiirigeliyo isla markaasna hadduu shaqo dheeraada la yimaadana isagana la dhiirigeliyo iyaduna waxay kor u qaadaysaa dhiiranaanta shaqaalaha marka commentiga waan jeclaan lahaa qaybtan discussionka ama commentiga inaad iga soo jawaabtaan su'aalahan what motivates you in your job maxaa kugu dhiirigelinaya shaqadaada how can companies improve employee engagement in your opinion marka su'aalahaana waan jeclaan lahaa insha Allah inaad commentiga aad kusoo jawaabtaan iyo groupka WhatsApp groupka